بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، waxaan soo gaarnay caawa saxaabiga magaciisa la yidhaha Saciid ibnu Zayd. Saciid ibnu Zayd ibnu Camar ibnu Nufayl waxay qaraabo dhow oo ehel yihiin Cumar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Cumar ibn al-Khattab ibn Nufayl, Saciid ibn Zayd aabihina waa Zayd ibn Camar ibn Nufayl. Marka Zayd iyo Camar ibn al-Khattab baa ilma adeer laxmi ah. midda labaad, qaraabada labaad ay kala yihiin waxa weeye Saciid ibn Zayd waxa u dhaxday Fatima bint al-Khattab oo Cumar walaashi ah. qaraabada saddexaad oo kala yihiin waxa weeye Cumar ibn al-Khattabna waxa u dhaxday Caatika bint Zayd oo Saciid ibn Zayd walaashiisa. marka laba jeer ay isu yihiin, ninkaana walaashiisa la qabaa, ninkaana walaashiisa la qabaa, waxayna ka wada mid yihiin labadooduba 10 al-mubashiriina lahum bil janna, 10 jannada loogu bishaaray ayagoo wada nool. tobankaas jannada loogu bishaareeyey, 10 keliya ma aha inta dadka ayagoo nool jannada loogu bishaareeyey, way ka badan yihiin 10. laakiin hal xadiis oo Cabdiraxmaan ibn Cawf uu warinayo waa 10 jamciyey. wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan ibn Cawf, qaala النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة. و10 ku caan baxay marka 10 jannada loogu bishaareeyey. 10 waa muhaajiriin, laakiin dad badan oo kale oo ansaar leh oo muhaajiriin kale leh oo rag leh oo dumar leh ayaa iyagoo nool jannada loogu bishaareeyey. dadku markii la yiraahdo 10 jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool, waxay u malayaan 10 kaliya in loogu bishaareeyey jannada, laakiin dadku intaa waa ka badan yahay. Allah musta'an. waxa kale intaaba ka dheer Saciid ibn Zayd waan ka arki doonaa qisadiisa oo ammaan badan ku mudan yahay, oo macnaha meesha hadda dadka bilad sharafka laga siiyo oo Ilaahay agtiisa bilad sharaf weyn uga qaatay muslimiinta agtooda. waa ninkii sababtu u ahaa islaamnimadii Cumar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, amiir al-mu'miniin Cumar Faaruq. oo dadkii islaamku wuxuu taray ninkii la yiri shaydaanku wadada uu maro waa ka leexan jiray. ninkii sababta u ahaa inuu soo islaamo sidana oo kulay waxaan ka soo qaadan doonaa. hadda toos qisada uma sheegayo, laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa insha Allah ta'ala. marka Saciid ibn Zayd, اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. زيد والد سعيد بهذا الكايري. اللهم الله يو إن كنت هداتهي حرمتني مد قديي من هذا الخير، خير كانوا إسلام نمضى، فلا تحرم إله كغد منه خيرك ابني ويلكي سعيدا
سعيد هذا الكاوحة سعيد بن زيد كعاو أن كهل إن أبيه بهذا الكايري قصدنا وحي أحيد وأنا قصة هذا كتابكم مركور وكوب بالله بدونه سعيد كصحابي ونعاو كهل لأن لقوم بالله بيه وحال لقوم بالله بدونه أبيه سو زيد بن عمر بن النفيل بقصة لقوم بالله بدونه زيد بن عمر بن النفيل وحو كمد أها تذكي لديه جري الحنفاء وحالي هذا تذكى أيضا بالنبي الله صلى الله عليه وسلم شركي النعي oo shirkigi iyo waxaan awsaantan iyo asnaamtan iyo waxaan la caabudahay ay ka hor imaadeen oo xaq raadiyay dadka iyaga ah waxay xaq raadinayo dhintay waxa kamid ah Saciid ibn Zayd aabihi oo Zayd ibn Umar marka islaamnimo loo rajaynayaa maxay yeelay isagoo sanam caabudayn oo diintii nabiyullaahi Ibrahim raadinayo iyo tawxiid oo wali nabiga la soo saarin wixii ay Quraysh sameeyeen ay la kharaaraadeen ayuu dhinto tii Allah imaarto tii wala dilay waa arki doonaa insha Allah marka wuxuu marka ku xisaabsan yahay insha Allah wuxuu ku xisaabsan yahay dadka marka muuminiinta ayuu ku xisaabsan yahay tawxiidka waa Zayd oo Saciid dalay Zayd kaasa markii la dilayay oo nafta ay ka baxayso nabarada lagu dhuftay ayuu wuxuu yiri asagoo marka nabiga u soo socdo aan wali aan nabigi arag oo wali famaynin laakiin jidka ku soo jiro niman burcad inta jidka u galeen bay dileen markii nafta ka baxaysay uu hadalkan yiri markaa oo wuxuu yiri Ilaahay hadda adiga islaamnimadii iyo inaan nabiga soo bixi doono intaan la kulmo aan islaamo haddaad iga qadisay oo iga xirmaanisay Ilaahay wiilkayga Saciid ka qadinin ducadii baa Ilaahay u aqbalo Saciid ibn Zayd dadkii ugu horeeyay islaamu ahaa koodii hore dadkii islaamu kamid ahaa ducadii aabiisa Ilaahay u qaaday اللهم الله يو إن كنت عداتها حرمتني مدقى حرمي أو إيقى قديي من هذا الخير خير كاسو إسلام ماذا فلا تحرم منه إله كغد ابني سعيدا والكيق السعيد إله كغد هذا الكوحي زيد أو والد سعيد أبيه قصة مركا وضاقع شاكل كب بالله ميسا سيدو توحيد ككور هذه إيو meeluhu soo marmaray iyo sidoo ku dhintay iyo markaa ku wareerin markii odaga tiisa dhamaato ayaa lagu xijin doonaa wiilkiisa Saciid ibn Zayd iyo soo ku islaamay iyo maaragtay iyo islaamnimadiisii iyo wixii ka dambeeyay markaa iyada marka sheekadu hadda waxay ku bilaamaysaa Zayd oo aabihi waqafa wuu istaagay Zayd ibn Umar ibn Nufayl ninka la yiraahdo baciidan meel ka fog عن زحمة الناس دتك إسوسا أوروري يعني زحمة الناس دتك بوق وضع إيو ماشي دتك كسو شرسنايين قونيبو أغبح يو ميل قونيبو كإستاغي يشهد أسوق فيرسنا هي قريش وهي أيضا تحتفل قدام الدقيسو بعيد عيد ومن أعيادها عيده إذا كمذا maalin maalmaha kamida Quraysh oo dabaaldegaysa ciidaheedii mid kamid ayuu intuu gooni uga baxay buu sidaa u eegay yani waxa ay sameynayaan baad qolo liito oo la xun marka nabiga lama soo saarin sallallahu alayhi wasallam waqafa uu istaagay Zayd ibn Umar ibn Nufayl baciidan meel ka fog min zaxmati الناس maashi dadku ku soo urureen oo zaxmada ahayd oo ciriiriga ahayd يشهد أسوأ دعوانا يا قريش وهي أيضا قريش تحتفل الدبال دقيس بعيد عيد ومن أعيادها عيده هذا كمذا ورأى وحو أركي الرجال رجي يعتجرون الضوبنا هيو العمائم عمامته مضح كالضوبنا هيو عمامته السندسية حرير تلقسمي الغالية غالية ويختالون أيجو حرقون هيو بالبرود قياشي كو حرقون
اليمانية يمن لغو سميي الثمينة قالقها رجي أو عمامته حتى مدح كدوبتي وعيد أو ولا لبسنيا هذانا حرقونا يو يمن ومش وبدنا حريت لغو سمين جري شيء مركي اليمانية اللي يراهدو معناها إن هن يمن لغو سميي واتلمان كميدا إنه شيء قالي وياهي ويختالون وحي كحرقونيين بالبرودي مارتي قوياشي أي اليمانية يمن لغو سميي الثمينة قالقها وأبصر وحو إنها سارو أركي النساء هوينكي والولدان عرورتي يأوبتكي أو وقد لبسوا لبستي زاهية الثياب درك متكي سبلعد السن وبديع الحلل ذهب كمتكيسا قالي هون أسوك لا أرق بديع وحن لمد لا أرق وي وحن لمد ودقيسا وحن لا أرق وأبصر وحو عندها صاري النساء وينكي والولدان أوبتكي أو وقد لبسوا لبستي زاهية الثياب دركوذكي بلعد السماء وبديع الحلل ذهب كمتكيسي قالقها xulalku wax la isku qurxiyo dhaga iyo silsiladaha iyo jinjimooyinka waxyaalaha dumarku qaataan way maalinta ciida darteed baa saa loogu soo labistay wanadara wuxuu arkay Zayd ilal an'aami xoolihi in la qala loo keenay oo yaquuduha ay hogaaminayaan almuusiruna kuwi maalqabeenada ahaa بعد أن حلوها مركي كسو قرحيين حوله بأنواع الزينة قروح ذا النوعية ذا قيلي حتى عيد الله كياني با لسو قرحيو نافك قيلة مركي لتشعلي هاي خاصة قالمها قيلة نينك قيلي ذا مركي قالنتو آد وعي اللون تهي وأما أيفنتو أما يشنولي في من wuxuu ka sugayaa inay hadda waa neef dhadigu hadda soo kacay 5 6 7 8 daood inay dhasho marka uu qurxinayo waxa weeye waxbuu ku taxi kulbu u taxi qurqurra iyo qardhaas iyo alaab buu ku qurxino macnaha geefka geelo la jecel yahay wax lagu qurxiyaa dabcan magacyo kala duwan in loo yaqaan laga yaabaa geeli marka loo waday meeshaas in lagu qala ciida waxa lagu soo qurxiyay waxyaalaha xoolaha lagu qurxiyo wanadara wuxuu fiiriyay ila al-an'aami xoolihi yaquuduha ay hogaaminayaan al-muusiruna dadkii maalqabeenada ahaa bacda an xallowha markay ku soo qurxiyeen xoolihi bianwaaci ziinada iyo quruxda noocyadeeda ama wax la soo marmariyo kalar iyo rinji awey ama waxa xoolaha lagu xiro maxaa saa loo soo yeelay liyadbaxuha say u gowracaan bayna aydil awthaanis asnaamta hortooda si loogu gowraco ayaa saa xoolahi loo soo yeelay marka asnaamtii wax loo qalayaa ciidu waa ciid asnaamtii iyo sanamyadu leeyihiin xoolihii baa la wadaa waa la soo labistay rag waxa ragoonaya dumarkii dahabkeeda ay soo xirteen فوقف ويستاجي إنك لي زيد ابن عمر مسندا أسوق كتير ظهره ودبر كيسة إلى جدار الكعبة كعبة الدرب جيدة أيو سدا وإيجي وحنا دقيو ما لقيت شري توحيد كما قرنا لكن وحن بالله فرحهم عيدنا إلهي هين إن لو وينيو وفستي عيد لو سميو وحول الله قالوا أي وحساد دبيس مركز فوقف ويستاجي مسندا أسوق كتير ظهره ودبر كيس إلى جدار الكعبة كعبة الدرب جيدة وقال وحير يا معشر قريش ورهاي قريشي الشاة الردى خلقها الله إلهي بأبوري ردى جور عيسان سنمك أو جور عيسان إلهي بأبوري وهو لنا الذي عليه هو
أنزل لها أسودتي رداس المطر روبك من السماء سمد أوغكيني oo farawiyad marka ay cabtay ay maartay wabaxday kow ridan hadda gowracaysaan kow ilaahay horta abuuray sanamku ma abuurin Allah abuuray waa ali roob u soo dejiyay haddana biyihii ka dharagtay wabaxday haddana waa ambata u soo saaray laha iyadii al-ushba awski cagaarka u soo saaray min al-ardi arlada uga soo saaro fashabi'ad haddana ay dharagtay oo awski ka dharagtay فالسنم كان مراب بو كيني مريدو أبوري معوس بو صوصاري النبات من نواميا ثم الضبادات تذبحونها وادو قور عيسان واد قور عيسان رذي على غير اسمه مقع إلهي مقع نهيم باتكو قور عيسان وسلم باتكو قور عيسان إني أراكم قوما تجهلون بويري إني أنو أراكم واندين جيدا قوما إناتين تجهلون جاهلين يعني ودعوذي أنبياء دعوذي هذا الذي أنبياء به جرين ويقران كان بدن كسو عرورتي marka qof kasta oo xaqa iyo tawxiidka wato kelmadu dhehel marka inni araakum qawman tajhalun ninka cid wax u sheegtay ma lehe bini'aadamku isku aqli maahan ilaahay baa kala fadilay nimba dhagax alwaaxa on hadlayn oo hadda dhinac u turtaan kici karin oo waxba tari karin oo waxba dhimi karin oo ilaah ka dhiganaya ninna wuxuu leeyahay ruuxan soo geed ma soo dhagax ma soo alwaax ma maxaad maaragtay muxuu tari karaa ma sax hadin hadin sida ayada hadin marka ninka la yiraahdo Zayd ibn Amr ibn Nufayl oo Sa'id ibn Zayd aabihi aha dadka xunafada uu ku jiray faqama waxa uu istaagay ilayhi asaga camu adeerki al-Khattab haba uu soo kacay oo waalid Umar ibn al-Khattab aha markaasi ninka la yiraahdo Zayd iyo faqama uu istaagay ilayhi Zayd buu soo istaagay camu adeerkiis al-Khattab aha waalid Umar ibn al-Khattab baa soo kaco falatamahu warbahay marka فرجل بولد عائلي برته بقدفتي وقال وحو يري تبلك هوجي ما زلنا كمان زولين نسمع منك إن كان مقلين هذا البذاء أفحمداس ساسم بعد أفحمنا ولا أكتاج أنت هبيني مال أو إلى هذا الشيء سأنا جرنين وأصنام تنادي عضوية سيسا وعمل كان سميني إني عيدها النجي عضوية سيسا markaasoo darbaha la gadiyay tabalaka ma zilna kama nazulin nasma'u minka inaan ka maqlayna hada albadaa afhumadaas wakale albadaa alkalam safiha way hadalka doqonnimada away wuxuu doqonnimada ku tilmaamay ridan ilaahay baa abuuray way ilaahay baa roobkana u keenay cawskana u soo saaray wanahtamilu hadana aan u dul qaadanayno kama nazulin wanahtamilu inaan u dul qaadanayno لكن هذا القادم ويني حتى نفذ إلى ودماضي صبرنا صبر كيني معلوم البساطة هذا كان ولا كتاع انتهى إلى مر صار هذا الصبر كان نجي هذا وعد ماضي تبدأ مكود القادم منه ثم أغرى به وهو قدري سفهاء قومه دقمدي غير تلكي يكادجي تذكر يرد منه عقل جوز يرد من يهيئه تذكر والوالن إيو الضومدي إيو وحي بالغو كعيي نينكو عقلي قفك نينكو هدو عقلي سودمية هاي نين كان محاد كربتا مقرني وحو أدو روحان سميها ديلي أو سميني هدو حوغا وين يهينا وبس وكو درديبو وكو مري عقلي كاعلي إلا مالي نحريسني إسلاني مانا مالي حوغ جيساس إلهي سيبو مركا كو أكسرساس كرينو كو تجابين وكو تجابين دقمدي waa laga adeejiyay marka waa kuwii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga adeejiyay maalintu Taif tago kale ثم أغرى به وحو قدر سفهاء قومه دقمدي تلكيا فآذوه ويدبان
walajuu waxay ku xeel dheeraadeen fii iidaa'ihi dhibkiisina waa ku xeel dheeraadeen aad bay u dhibeen xataa nazaxa ilaa uu ka qaxay can makata maka ilaa uu ka qaxay zayd oo deganaan waayey bu ilaa markii dadkii lagu diro qof weyn iyo qof yar iyo addoon iyo doqon iyo mid kale iyo islaan iyo gabar iyo nin iyo oday iyo wiilba ay ku dhibaan oo inta lagu tashado qofkii kaasoo horbaxaba ama hadal xun ku yidhaha ama wax kugu dhufto maba joogaysidbo xataa nazaxa ilaa uu ka qaxay can makata oo waltaja uu magan galay ilaa jabali xiraa godkii xiraa iyo duurkaasuu iska aaday halkaasuu iska aaday ka tag magaaladiibu fawakala wuxuu u wakiishay bihi isaga alkhataab baa wuxuu u wakiishay oo u xil saaray daa'ifatan koox oo min shabaabi quraysh dhalinyaradeedii ahayd oo muxuu yidhi liyaxuuluu inay kala celiyaan duunahu asaga iyo duuna dukhuuli maka soo gelitaankeeda yuusan soo gelin bu yidhi soo kama bixin ka ilaaliyo magaalada inuu soo galo hala waardeeyo fa kaana wuxuu marka zayd laa yadkhuluha midaan soo gelin maka ilaa siran si qarsoodi ama ogiya ma soo geli jirin si kale kuma soo geli jirin uma ina zayd ibna camar ibnu nufayl ijtamaca wuxuu la kulmay fii gaflatin si hoosoo qarsoodi fii gaflatin min quraysh oon ogeyn wuxuu la kulmay ilaa kulli man dad buu la kulmay ay ka mid yihiin waraqata ibnu nawfal wa cabdullahi ibnu jaxshin wa cuthmaan ibnu alxaaris wa umaymata bintu cabdilmutalib camati moxamed ibni cabdillaahi ahayd sala allahu calayhi wasalam saddexdaa nin iyo wuxuu la kulmay iyo gabadhan oo nebiga eedadii ninka koowaad waa waraqata ibnu nawfal ninka labaad waa cabdullahi ibnu jaxshin ninka saddexaad waa cuthmaan ibnu alxaaris iyo umaymata binti cabdilmutaliba waxay dhashay cabdullahi ibnu jaxshin hooyadiis weeye cabdullahi ibnu jaxshin iyo zaynab binti jaxshin oo umulmu'miniin iyo waxaa dhashay umaymana waa nebiga sal ly slam eedadii waa ina cabdilmutalib ma soo gaartay waxyiga iyo ma soo gaarin labada hadalba waa la sheegay waxay u badan tahay inayna soo gaarin waxyiga way ka hor dhimatay laakiin kutubta siyarka o dhan waxay qoraan inay ahaayeen dadkaani dad ehlu tawxiid oo diinta nebi ibraahim haysto oo asnaamta aan caabudin waraqata ibnu nawfal waad garanaysaano waraqata ibnu nawfal ibnu asad weeye waxay ilmaadeer laxmi ay yihiin khadiija binti khuwaylid ibnu asad iyo waraqata ibnu nawfal ibnu asad labadooda aabba walaala nawfal iyo khuwaylid baa walaala marka waana ninkii loo geeyey nebi sal ly slam markii loo waxyoodo akhre lagu soo dejiyey oo zamiluni uu yidhi suubanuhu ninkay u geyso arrimihiisa oga sheekaysay weeye oo yidhi waxa kuu yimid waa naamuuskii waa khayr wadihii u yimid muusa iyo ciisa u yimid weye waa jibriil soo ma jeedid uu leeyahay yaa laytani maan ahaadoo nin dhalinyaro yaa laytani kuntu jadacan markay tolkaa ku saarayaan maan dhalinyaro ahaado markaa iyada aan kuu heliyo garabkaaga istaage markay tolkaa ku saarayaan markaasu wuxuu yidhi suubanahu oo may saarayaan magaalada laga bixinaya buu yidhi ma jaa axadun bimithli ma ji'ta ilaa cuudiya uu yidhi ninka la yihahdo waraqata ibnu nawfal qof la yimid waxaad la timid ma jiro ilaa hadduu la yimid waa la colaystay qof xaq wato haddaad aragto waa kii la colaystay cadow buu yeelanayaa haddaad rabto inaan lagu colaysan oo lagu dhibin waa inaad markaa dacwadii faraha kala baxdo oo dadku kama naas iska noqoto waxay sameeyaan iskala samayso hadday heesaan hees hadday ciyaaraan ciyaar hadday qoslaan qosol qof kula hadlaya ma laha ninka cidda ugu fiican baata maalintaad wax wanaagsan sheegta laakiin shayaadiin iyo in alla intay ku shaqaysan jireen cadowgaaga wuu badanayaa waa lagu colaysan tolka waa kala dhimanaysaan qaaraanka ken baa lagu dhihi markaad diiddo waa lagu goyn waxa weeye qaaraanku ma aha qaaraan oo dhan lama diiday midka khayrka iyo dacwada iyo madrasooyinka iyo qaraabo xiriirinta iyo masaakiinta iyo agoomaha iyo lama diido laakiin markii la yahay ree hebel banaysaynaay xoogaa hub baan aruursanaynaay waa in la gadaa hub la gadaa iyo wax lamid markaad diiddo waxa lagu dhihi kan cidda kama dhalan waa dayro marka waxba ha u jalaq ha u siin haddiiba ilaahay uu raalli kaa yahay waxaad samaynayso bini aadan maaragtay colaadooda xog kaa qaadi mahayaan wax ilaah inta kaama qaadayaan
واساسوي وحي ورقة من نوفل مركي النبي لوجي ما جاء أحد بمثل ما جئت إلا عودي والله الله يستحي قف واحد وقت اللي يمد مشرو إلا هدو يمد والله الله يستحي مركي ورقة من نوفل وانكاس نصراني بكل انتي سوى نصراني لكن وحوي وحا نصراني هذا مركي الدين إسلام كأوجرتي نبي هرتي هذه دين النبي الله عيسى عليه السلام واللي يمد بيعيد ninkii aan bedelin oon taxriifin oo in allaha thalithan thalatha aan dhihin oo ciise waa wiilka ilaahay aan dhihin oo maryama ilaahada aan dhihin oo diintii siday ahayd u haystay waa muslimiinta markaa jirtay ayay ahaayeen waraqata ibn Nawfal marka dadkaas uu kamid ahaa Abdullah ibn Jahsh uu islaamku soo gaaro saxaabiga garanaysaan oo wuxuu ugu dilay weeye ninka la yiraahdo Uthman ibn al-Harith ma haya asaga kaati siiradiisa ana khasraa waa damay laakiin waqti badan uma helin iyo Umaymata binti Abdul Muttalib oo amati Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah wuxuu Muhammad ibn Abdullah u leeyahay waa waxyi ka hor qisada markay dhacaysay sallallahu alayhi wasallam Umaymana marka waxay dhashay maaragtay dad badan oo saxaabada ay dhashay waxa kamid ah Abdullah ibn Jahsh waxa kamid ah Zainab bint Jahsh waxa kamid ah Ubaydullah ibn Jahsh oo Ramla bint Abi Sufyan ninkii markii hore guursaday ahaa nasraanoobay markii dambe asagoo nasraani ah ardul Habash ku dhintay markuu hijrooday kadib iyo Abu Ahmad nin la yiraahdo ciddaas oo dhan waxay ahayd reer Jahshin waxay ahaayeen dad khayr ahaayeen ninkaas inta hijrooday haddana markuu ardul Habash tagay diintii nasaarada ay la yara qurxanaatay ridoobay ma ahane inta kale ilaahay waa sugay reer fiican oo diinay ahaayeen waayahay dadkaas oo marka habeenimo u yimid ninka la yiraahdo Zayd ibn Amr ibn Nufayl habeenimo u yimid oo soo dhoontay si siro ala kulmay wajacalo waxay bilaabeen dadkan marka odayaasha iyo gabadhabo Umayma iyo Abdullah ibn Jahsh iyo Uthman iyo Walaqa iyo Zayd wajacalo waxay bilaabeen yatadaakaruna inay daraasaynayaan oo ka sheekaysanayaan ma qaraqad fihi waxay ku qarqoontay oo ku maashootay al-arab oo min ad-dalal baadinima qaraq waxa way markay biyuhu ku hafiyaan oo kula tagaan marka baadinimo iyo dalal baa sidii biyuhu oo la tagay oo hafiyay oo ku maashoodeen ku qarqoomeen ku dhaxbaqtiyeen فقال زيد بوحر لأصحابي صاحبتي وحكيري إنكم والله إلهي بان كل عرتي لا تعلمون وأكتهين أن قومكم قوم كينة وقريشة ليسوا على شيء وحبا إنيسان هينين وح إلهي أنطي وهيان إنيسان شرين وحبا إنيسان سلاهينين واحد دين وهي هيستا إنيسان شرين وأنهم أيقون أخطأوا وحي كوكفين دين إبراهيم دينتي نبي إبراهيم بيضبان مرين وخالفوه وخلافين وخالفوه وانا خلافين انهم ايوا اخطاوا وحي كوقفين دين ابراهيم نبي الله ابراهيم دين تيسي وخالفوه وين خلافين الاصنام بيعبدوا ينصمها فابتقوا راضيا لانفسكم نفسنا دين راضيا تدينون به اتكدين دغتان waxaan diin idin noqon mahayaan sanam la caabude diin xaq ah oo diinta nabi ibraahim هلا بعد كوبو إن كنتم هداتهين ترمون كوربو النجاة بدبادة يا عذابنا تكبد بادان هدار هفتان دين راتسدا دين النبي إبراهيم راتسدا وحن قريش هدا يكون ما شوطي ويكوكر قونتينا وبعد النمضة هنا كعرضة فهب الرجال رجوي بوذن الأربعة أفرتها وأنك الإله عثمان بن الحارث يا عبد الله بن جحش يا ورقة بن نوفل يا زيد بن عمر بن نفيل انت هوي gabadhu mukarreebay law ayadu waa gabar oo baadigo mid karto oo ma socdaali karto fahabar rijaalu rag way boodeen al-arba'atu afarta ila al-ahbari bay aadeen culumadii min al-yahuudi wa nasara yahuud culumadoodii kitaabka haystay bay aadeen iyo waqeyrihim dadkii kale من أصحاب الملل ديمها وصاحبك أها
إلى حق بيرادين يعني يلتمسون أيقو رادين هيو عندهم أكتوذ كرادين أيو الحنفية الدين تي توصنيت ودين إبراهيم أهيد بيرادين أيان حقيقة أقول مركا عربي ومشركين وحول لو الدين ما هي ذاتك أهل كتاب هواين لو وريست مركا قولي لها الدين تي حقا هكي جرتا ما حد عامي سنتهين تنا اللي إيجيا مركا إنهم كانوا دين نبي الله إبراهيم بيرادين أيان أما ورقة ابن نوفل 100 فتنصروا نصرانوبو مركي دينتي كريستان كالله سرحي بيلاقوا حناطي وقاتي مركا ونصرانوبي نصراني منقضي مركا دي دينتي جرتنا ومن دينتا أيضا أيقو إسلام كجرا مركا وأيقا وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصير إلى شيء مال بمجارن أيوه مال ما دقاقهم يسكتشوجين وحنا والله فالحمادين وما يسمين إنسان أصنامتي وحنا ما يعابدين ما نعيسن بعد جوبنا ما يقلينه ما شو ده يسكتشوجين وأما زيد بن عمر 100 ابن النفيل وصحابي عوا قال لنا سعيد بن زيد أبيه وياه فكانت له قصة يا أسق نيد سجاره لها فلندع ندينه له أسجع الكلام هذا الكلام ليرويها لنا هنوري قصديس أسوها نوغشة كيه أسجع ندينه ما قصديس قال زيد بن عمر وحو يري وقفت وحن دول استاجي على اليهودية دينتي يهودا يو النصرانية دينتي نصارى بان مدول بدول استاجو ايجي او دحكي لي او فيريي فأعرضت وان كجستي عنهما اللبض وذيب وان كجستي وهو بقواي إذ وقت لما أجد أن هلم فيهما دحدودا ما أطمئن إليه وحن كحسلو كمهلم maxaa diinta waa la bedelay diintii saxda ahayd meesha ma taal waa la wada tirtiro waa la bedelay wax marka ay qanciyo waa ka waayay waxaan ku soo marnay qisadii Salmaan al-Farisi in uu maaragtay qalb nin u sii dhiibi jiray wax diin xaq ah haysto oo kitaabka runta ah haysto waxay dad fara ku tirsay ahaayeen markii dambe ninka ugu dambeeyay uu yiri nabi baa soo bixi doona ee halka iyo aad meesha geetimireed kale iyo Madiina aad سيدا ومدينة كوي من نبي ساكو سوه هجرودي ساكو إسلامي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو وحو يري زيد بن العمر مركان دينتي يهود ديتين نصرانا فيري نصارى وحي أنفعوا كواي وجعلت وحن بالله يري أطريب ناس كسعود في الآفاق هل كأفرت بين جهينا اسكادو قلب ميل آدو اسكسقو بحثا أنا رادين عن ملة إبراهيم دينتي نبي الله إبراهيم التوصنيد وأصنامتي خرافاتي وحا اللهين بأن رادين يوانين إلهي خير لدوني حتى صرت إلى أنجاري إلى بلاد الشام روك الشام بانجاري فذكر لي وحا ليشغل راهب من وداده وعنده أكتي سوى هذا علم من الكتاب كتاب علم سنين هيو علم بدن أو راهب أو ودادتي نصارى بالله إيشي فأتيته وأتجيو فقصصت عليه أمري أرنكيغان وغشيكي يوحن بعد قوبيو فقال وحي ويري أراك وانكو أركا تريد إن دونيس دين إبراهيم نبي الله إبراهيم دينتي يا أخ مكة ولالكي غريب مكادو إن دينتي نبي الله إبراهيم حنيفة أحيد فهذين إيسانكو أركا قلت وانكو نعم ذلك ما أبقي وحن رادين هيوي كائسا وحن جرين هيون رادين هيوي فقال وحو يقول إنك أدقو تطلب واحد رادين إيسا دين بات رادين إيسا لا يوجد اليوم ما أنت أنجرين دين عن ما أنت الدنيا كتشرين بات رادين إيسا دين نبي الله إبراهيم لين عبي أبضتي ولا بدلي حتى كتاب كأن القرآن كإلهي بإلاليه وحفظيه هدي لديه لها مسلمين تو كتاب كودها حفظستين انت مسوق جاري لها وضم رينيسا مسوق جارين كواب مرة اسكت ديني وحكا بدلان آياتها الجهاد كهلا بدلو آياتها الدحل كهلا بدلو آياتها أحكامتها هلا بدلو آياتها ماركتي توقين قعنت لقويو iyo qofkii zaaniga in la jeedlo
wax alla wixii xuduud ahay oo dhan hala bedelo waxaan la isku dayn ma laha qaar baa waxay yiraahdeen quraanka qul oo dhan laga saaro qul maxaa yeelay qul nabiga lagu hadlaayay marka qul ya ayuha kaafiruun soomaa ya ayuha kaafiruun laga bilaabo marka suurada waxayna isku dayn male laakiin wuxuudan ilaahay subhanahu wa ta'ala habaan matuuran buu ka dhigay habaan matuuran hatta waxa la sameeyay niman culamo ahoo garar waaweyn oo shuyuukh ahoo oo maaragtay gaaladan la shaqeeyo oo waxay gaaladu rabto u fadwoodo oo waxa lagu leeyahay waxaan sidaan ma aha si kala loo wadaa waxaan waqtigoodii hadda lama joogo waxaan waa sida culimada waxay dadka Soomaalidu waxay yiraahdaan waagi Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan uu la dagaalamayay Ingiriiska baa nimanka Ingiriiska waxay xajka geeyeen niman badan intay aruuriyeen wadaada ay xajka geeyeen soo xajisiyeen markaasay dhaheen ninkan waalan ka hortaga wadin barakicinayay nimanka waxay yiraahdeen baa la yiri nimanka inay cad yihiin ma aragtaan waa sharaaf oo in la dirrabo ma banaano wayna soo islaami doonaan maalmaha kamid ah marka yaan waa u shaqeyn weyda hadii wixii way shaqeyn waayeen wax baadala meel lama gaarayaan marka waxaan la isku dayn male laakiin ilaahay baa kitaabkan ilaaliyay subhanahu wa ta'ala hadii maanta waxa la musax adduunka yaa la gubo hadii xabadka lagu hayaa quraanka Soomaha wiil yar baa akhrinay hadaad qalado waxa ku saxaya lixjir baa ku saxayo xarakada qalado shaqal ninba waa lagu saxaya sayid karma soo qaylanay marka musaxaf lagu maxay marka u taraysa xoo ma taraysa ilaahay baa ilaaliyay diintan subhanahu wa ta'ala kutubta naga horeeyay oo injiil iyo tawraad ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala culumadii ay kutubtiina ilaashada reer bani israa'iil oo ilaashada kutubtiina si midba maalin loo bedelay kan waqtiga lama socon karo tuur kana maslaxadan oo ka hor imaanaya tuur kan madaxda laftoodu hayaay oo qabanaya tuur si loo lahaa wax la dhoodhoobay baa soo haray taa iyada way markuu wuxuu sheegayo wuxuu yiri innaka adigu tadlubu waxa dalbaysaa diin la yujadu al-yawma maanta aan la helayn diinan maanta la helaynin oo adduunka baan oolin baad raadinaysaa walakin wuxuu yiri ilhaq waxaad gaartaa oo haleeshaa bibaladika magaaladaada aad ka timid fa inna allaha ilaahi yab'athu wuxuu soo saari doonaa min qowmika qowmka uu ka soo saari doonaa man qof uu ka soo saari doonaa yujaddidu diina ibrahima diinta nabi ibrahim cusboonaysiiyo فإذا أدركته مركز قفك الله كل أنتظ هشوا فالتزمه ما قفك لازم ولنا حاجة دقائق سأسأل الغلط دار زيد بن عمر أو سعيد بن زيد أبيه ترتان كاس على سوسي حقه وكر هذين هشام يملها مكو بكسب بحياة هذين مكة كلها فغفل وصوام ببحي زيد راجعنا سوى قصة نقنا إلى مكة يحث أسقو بوبسين هي الخطة طلابة التماسا أسقو بعد جوبها للنبي الموعود نبي ماركتي لوب الله نبي صوب حيي وصوب حيا ليري أسقو راي بعد جوبيو ولما قلت كان وها في بعض طريقه تتكيسة ووضد وكسو جري بعث الله إلهي وحو صار نبيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق على رسول صار دينتي حق إيهانون كلاحيد على رسول صار ماش هذا شام بكت دبل بالله عنيا مركا ياردهن أي واحد لقوا يعيه بس كان دايرينا مجران يباورتان لوطة مجران مركا وانم بل إنه سيسعر إنتو سيسعري باب النبي الله وحيود صلى الله عليه وسلم يا الله وحيود لكن زيد انك زيدها لم يدركهم مهل مجار والنبي لما كل من إذ وقت إذ سبب تاسب وحي هدو جاري واي خرجت عليه وحكسر بحث جماعة من الأعراب كوح أعراب تكمي ده ريمي هو برعدة فقتلت هو يدلين قبل أن يبلغ انتو سنجار مكة يكول لغسي جيتك الله قرأي فقتلت ويدي جماعتي قبل أن يبلغ انت سنقال مكة أو وتكتحل أو سنكوين دكولا وتكتحل أي سنكوكولا من عيناه إندهيسي
برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاركتديس أسوغم بالنبي يكون عند كولون وكل قبوسا وولي بجارين أيال الدلي وفيما وقت كانوا زيد يلفظ متفه أنفاسه الأخيرة النفط وقدم بسيكسعته رفع وحو كرو قاضي بصره أرقيسي إلى سماء سمد وتاقي كربو أقي وقال وحيري اللهم إن كنت هديئتهي حرمتني مد إيقا حرمه إيقا قديي من هذا الخير خير كاسي إسلام نمدي فلا تحرم منه إله كقدن من ابن سعيدا ويلكي سعيدا إله خير كقدن الكاس وقسو الدعي ويلكيسي ويادكو اتش على سعيدا حن انت أمرك وعقود ما تقصدي زيد بن عمر أو سعيد أبيه هل كان أمرك سعيد هيسك بالله ميسان وشاء الله إلهي وحدنا سبحانه هفناي وحمانه لنكه هفناي أن يستجيب إنه أقبله دعوة زيد بريديسي فما إن قام موسى كعن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس أسوى ضدك وغير إلى الإسلام إسلام لماذا حتى كان إلى وكاء هذا سعيد بن زيد وويل كيه في طليعة من ضدك وغير ريو آمنوا بالله إلهي الرميي هو صدقوا الرميي رسالة النبي رسالة دي سنة الرميي dadkii ugu horeeyay daliica waxa la yiraahdo hordaan ama hordhac ama caarad waxa la yiraahdo dadkii ugu horgalay islaamnimadu kamid ahaa zayd maartay saciid ibn zayd wala qar wala yaama laha inuu saciid ibn zayd islaamnimada u soo degdeg wax la yaabo ma aha maxaa yeelay faqad nashaa wuxuu ku barbaaray saciid fi baytin ras iyo guri yastankiru inkiro oo diido ما كانت عليه قريش waxay ku sugnay oo min ad-dalal baadinimo guri laga naco shirkiga iyo awtaanta iyo quraafaadka ayuu ku soo koray abiiba halka ka maqli jiray warubbiya waxa lagu koriyay oo lagu barbaariyay fi xijri abin aabe dhabtiis xijriga waa dhab ilmaha la saaro warubbiya waxa lagu barbaariyay fi xijri abin aabe dhabti aabaha soo caasha noola حياته نولشيسي وهو أسقون يبحث عن الحق حق رادنا هيو أبا حق دونه دفتي سوكسو كري أباها سو هدنا وماتت انتي وهو أسقو يركض قعلين هيو ولا هيثن هدنا نفتور هيو وراء الحق حق قداشيسا أسقو حق رادنا هيو وقعلين هيو أمر علين هيو oo neeftuurahayo xaq gaar leh ayuu dhintay aabahaas waa ninka jidka loo galayo dadka caraabta ay dileen ninkaas dhabtiisa ku soo koray marka la yaambale inuu hore ka islaamo saciid ibn zayd ولم يسلم ما إسلام سعيد وحده سعيد كلمة إسلامينه وإنما أسلمت معه وحال لا إسلامتي زوجته هوينيدي فاطمة بنت الخطاب أحيد أخت عمر بن الخطاب أحيد بالا إسلامتي أم الخير بالا دي شري كبدا سامرك والله إسلامتي إسلامي ولا قادت وغض لقيه والله كل ما الفتى القرشي ويلكي قرشيد وسعيدها من أذى قومه تركي سدبكي سيب الله كل ما شيب الله كل كان أها خليقا مد أدقمو أن يفتنه عن دينه الدين تسيني كفت النيسة وحده هذه أو قص كيف إنه دين تسي كفت النيو أو عقاب يدباته يعداديس هيو لكل ولكن قريش بدلا اسكبدا من أن تصرفه إني أسقى كلحش عن الإسلام كإني كلحش اسكبدايه استطاع وحو أوودي هو سعيد هي وزوجه زوجديسي وحي أوودين أن ينتزع إني كدح سيبتان منها قريش رجلا نن ومن أثقل رجالها رقيدة متك أقعلس وزنا حق ميسانك وأجله متك أقوين خطرا حق خطر نمضا أقو خطرسا بكدح سيبتين وعمر بن الخطاب وي يعني إني أسقى بدلان بالربيني إني أسقى بدلان ودينتي كعليان اسكبت دايين أسقى بقول كده اليوم عمر بن الخطاب وكلاب حي فمعها منك عمر بن الخطاب إلهي صابته وقد إنه سوء إسلامه سوء قريش دبرك كما تشبين الله إليها سداوي مركان وإياهي
ولكن قريش بدلا اسكبدا من أن تصرفه إني كلحس عن الإسلام إسلام كيه استطاع وحو أوضي وكري وأوضي يا شيء هو سعيد بن زيد هي وزوجه زوجتي وزوجته هي وزوجه لبضوا صحوي وزوجته هوينيديسي وزوجه لمانه سوي مركع لمانه سي قرآن كانوا كسارات أن ينتزعا إن سيبتان منها قريش أي كدح سيبتان وكلبحان رجولا إنه من أثقل رجالها وزنا رجع ميسان كعرصة وأجلهم خطرا أغنى خطر سنة حيث مال كان يا هايدين سعيد يا حاسكيسي سببا يوهايين في إسلام عمر بن الخطاب إسلام نمدي يسوي سبب النقدين بس هذا نوات كرنا إنسان كله عمر بن الخطاب وسيف انتقع تيري وحن سود لي النبي صلى الله عليه وسلم نبى أركو في المنطقة حاجات سيفته هي جيسنتها وحورين كان مدي الكري وعي ومدي كالجي أيام المنطقة كسر تخلصها واحد على عاد عين مركز وحو يري نينكي بقى وحي والله لا لف لا توبين كويسة من ورث كهيا بمتي بين بس شكت مركز يري محل داعي أو ولا شباب إسلامتي ينكي دينا ذلك أهم هذا الحقيقة بن إسماعيل كقبت ما تكقبت marka ninka hadalka ku yiri nin muslim oo ahaa la yiri nin muslim ah ujeedada uu yirina waxay ahayd baa la yiri laba macna waa la sheegay labada waa sax inuu horta nabiga ka leexiyo oo nabiga la dilay iyo Saciid ibn Zayd oo la dilo waxay soo dhigma ma aha intuu nabiga dili lahaa inuu nabiga ka leexiyo meesha uu aado kulay ninkaasi waa inay قرابي أهل يطلي هنا وحي إسكالة دعامبو ومعنى لابد بقى تديك وسم انت انت رام بالقاتا إيوه مدة لبعض وقلت المامي وحي عيد بالليري ومالي الله وحكا وضي عيده نين كانوا واسيديجي وعلى يابا النبي إنه كل ديران لكن كان إنه سن كل ديران سيديجي إنه سن كل ديران إيولاشي وسن دل كل ديران باب على إمارة لا توقعه مركع يضع لا توقعه مركع لبضوا ويشجعن علماء مركع سوق وقلت لي مركع سعيد بن زيد هي فاطمة بنت الخطاب هي خباب بن الأرض أو قرآن وآخرين هيو يقولوا هو قرقراعي قصة سوق كسر إسلام عمر سيدا في هاي ويدار تهدى وكيف بينا إن شاء الله وهي هاي وضعوا سعيد بن زيد طاقاته أوده سي الفتية داد يراء شابة دلن يردها كلها دمان تدوحوا لغي في خدمة الإسلام كانوا خدمينه وأذيق حي أودي سي عقل سي مسكح دي سي وحو قليي إسلام كانوا أذيق مركو سوء إسلامي ساسي صحابه أحيان نن انت سوء إسلامي دنيه سعادي أسكر عضو مجرين دعوهم بالو استاقي جري إذ وقت إنه أسوه أسلامه إسلامي وسنه والحال سنه دادي سنة لم تجاوز أيسن دافن العشرين بعد لباتن أيسن ولي دافن أيسن ولي لباتن دافن ولي مركز الله تنشير عملها أيوها واقرتي إذ وقت إنه سوى أسلامه إسلامي وسنه والحال سنه دادي سنة لم تجاوز 20 بعد لباتن ولي أيسن دافن وايه فشهد و حاضري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد قوبه ونبي حاضري كلها دمانتود إلا بدر موجي انت كلا نموجوي فقد غابوا وكم غنى عن ذلك اليوم ما انتهى بدر لأنه كان وحوها سعيد في مهمة هول وكلفه إياها النبي صلى الله عليه وسلم النبي ودر وحل ساري يكون مغنى هول الله دري بكون مغنى بدرنا كما حرين مهمة دي هول مهمة الله دري والنبي ودر بكون مغنى انت كلا لكن وحاضري وأسهم وحو كقيب قاتي النبي مركو انت كدب على اللياي وأسهم وحو كقيب قاتو سهمي سكقاتي مع المسلمين تمعوضة في استلال عرش كسرى
carshigii iyo boqortooyadii Kisra xididda siibkeedii ayuu ka qayb qaatay in xididada loo siibo. Kisra waa boqortooyadii Faris, in xididada loo siibo la tirtiro ayuu ka qayb qaatay. waayahay iyo watafwiidi in la wiiqo mulki qaysar boqortooyadii la wiiqo. boqortooyadii macnaha qaysar waa nimankii Roomaniyiinta ahaye ayaga lama tirtirin oo hadda waa kuwa adduunka waliba hadda awoodda ku lehe laakiin Sham iyo dhulka unbaa laga qabsaday laga qabsaday. iyo watafwiidi mulki qaysar boqortooyadii in la wiiqo. وكانت له waxa usugnayd في كل موقعة meel kasta iyo goob kasta oo khaada ay tiimbadeen qiimaha moolkeeda almuslimuuna muslimiintu mawqifun boos baa usugnaa Saciid ibn Zayd booskaas oo qurrun cad oo mashhuudatun haddana markhaati laga yahay. dagaalada iyaga oo la galay oo ama qaysar laga galay oo reer Faris lala galay ama reer Rome lala galay waxa usugnayd oo uu ku lahaa makaan buu ku lahaa ama arrin buu ku lahaa arrintaas oo laga wada markhaati kacay. وكانت له waxa usugnaa في كل موقعة meel kasta goob kasta oo khaada qiimaha ay dhex tiimbadeen muslimiintu mawqifun boos buu ku lahaa booskaas oo qurrun sharaf leh ama cad oo ifahayo ama wada muuqdo loo wada jeedo oo mashhuudatun haddana markhaati laga yahay. iyo wa ayaadin gacan buu ku lahaa biidun cad gacan cad oo maxmuudatun lama hadiyo yani aad buu dagaalamo wacdar uu soo hooyey wey. walacalla waxaa laga yaabaa arwaca butulaatihi geesinimadiisa midda ugu quruxda badnayd tilka inay tii tahay allatii taasoo sajalaha uu qoray yawmal yarmuug maalintii yarmuug wacdarihii uu dhigay inay tahay laga yaabaa kuwa ugu qurux badnaa wacdarihii uu Saciid ibn Zayd uu soo hooyey islaamku uu soo hooyey. falnatruk lahu lkalaama hadalkaan u dayno liyaqusa calaynaa suu nooga warramo nooga sheekeeyo darafan qayb oo min khabari dalika alyawmi maalintaa yarmuug khabarkeedii iyo wixii dhacay bal asagu hanoo soo tabiyo. yarmuugna waxay dhacday xilligii khilaafada Cumar uu qaftay oo cusbaa kala guurka Cumar iyo Abubakar. meeshan hadda la yiraahdo dhulkan hadda Syria ee Golan Heights la yiraahdo dagaalkaas ka dhacay yarmuug muslimiintuna 24,000 bay ahayn baa la yiraahdaa. nimankii Roomaniyiinta 220,000 bay ahayn baa la yiraahdaa. inkastoo hadda kitaabka 120,000 uu dhihi doono laakiin kutubadu waxay qoraan 220,000 inay ahaayeen. yarmuug baa la yiraahdaa dagaalka isaga. waxaa ciidanka hogaaminayay ninka la yiraahdo Khalid bin Walid waa la yiri, Abu Ubaydana waa la yiri, kulli labadooda waa isaga hooseeyeen. xilliga Abu Bakarna Khalid baa hogaaminayay. Cumar markuu talada qabtayna wuxuu u dhiibay Khalid wuxuu ku bedelay Abu Ubayda. marka Abu Ubayda iyo Khalid bin Walid iyo Yazid ibn Abi Sufyan iyo Sharaxbil ibn Hasana afarta qaayida ciidanka ugu waaweyn afartaasay ahayn. waxaa mustashaar u ahaa Abu Sufyan ibn Harb oo la taliyo u ahaa Abu Sufyan ibn Harb oo oday oo waayeela oo waliba il ay ka dhacdo illa ba habeenkii dagaalku markuu dhici rabay nimankan Roomaniyiinta ahna waa niman dawlad oo intaasoo sano boqortooyo soo ahaayo ciidanka intay line u geliyeen oo uniform isaga u geliyeen bay silsilada iskula xireen boqol bay iskula xireen saan loo aqrin. dagaal ka horeeyay baa dhacay oo badan oo lagu jabiyay kan marka waa kii ugu dambeeyay oo Sham oo dhan looga qabsaday yarmuug. marka kan way dhaarsanaayeen inaysan cararin silsilad bay iskula xirxireen. in allaalaya intii maartay ciidankoodii wax allaalay wixii commandos ahaa iyo wixii qaylin jiray iyo wax oo dhan waa la keenay. waxa la wixii wadaad ahaana waa la keenay wadaad diineed ahaa kaniisadaha. habeenkii marka muslimiinta ay shirayeen oo kaartada dagaalka si loo gali lahaa ay ka hadlayeen bay waxay ku shireen guriga Abu Sufyan
ibn Harb Abu Sufyan waa joogaa marka yaa shirayo Abu Ubayda iyo Khalid bin Walid iyo Yazid ibn Abi Sufyan iyo Sharaxbil ibn Hasana rag maartay qiyaadada ah shirayo Abu Sufyan marka uma yeerin gurigiisana way ku shirayeen uma yeerin macnaha way ismahadiyeen wax inay kala Abu Sufyan u baahan yihiin markaas kama dhaadhicin waa nin weyn oday ah oo waayeel ah intuu ummadda usoo talin lahaan usoo tali markaasuu yiri maxaa sameeynaysan waan tashanaynayo kaartay dagaalkan ka tashanayno markaasuu yiri adduun xaalkaaba ha maanta ma dhalinyarada Quraysheed baa tashanhayo oo gurigeyga ku tashanhayo oo dagaal ka tashanhayo oo haddana aniga ila tashan waxba ii sheegin adduun joogis mala buu yiri bas way adduun inuu dhamaaday saasan ku ogaaday wal waxa haysan ii sheega waxay hayeen bay u sheegeen halkaasan dagaal ka galeena halkaasan galeena xagaan marayna xaga ay wax ka imaadeen halkaas wuxuu yiri wax alla waxa sheegay wax ka jiraan wuxuu yiri nimankan waa 200 intaas oo kun idinka badan idinkana awood badan idinkana xoog badan meesha kaliya kula dagaalami kartaan waa dhulka buuraleyda meesha hadda Golan Heights kala yiraahdo way oo dagaalka Yarmouk uu ku dhacay barta lagu dagaalamay ninkii ishaaray wuxuu ahaa Abu Sufyan goobta ninkii tilmaamay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtiisana nasri uu ku siiyay muslimiinta uu ku siiyay waayahay dagaalka Yarmouk saddeer buu leeyahay dagaalada waaweyn muslimiinta ay galaan Yarmouk iyo Qadisiye iyo dadku inay aad u akhriyaan oo u dhageystaan ba fiican cibro badan baad la kulmaysaa yaad arkaysaa وايه وايه قال سعيد بن زيد وحير لما كان مركي هذا يوم اليرموك ما انت يرموك كنا وحنا هين 24,000 أفر يلباتنكم أو نحو من ذلك أما وحكو دلو فخرجت لنا وحنا نوصب هاي الروم ونمنك الروم رومانيين تاها تلياني ويمركي نمكاسي 20,100,000 بقول يلباتن كن بين وصبحين لو بقول يلباتن قول كراجحة بقول يلباتن لأن واحد اللي هذا أنت دمتي بالله بقول كن عيد باليري لما عرري كانوا رسكوا حريم هذا ملاين لباتن كن وحكوا دبا كعرر لي أيا كعرر مركو جوه رسمي وجبكوا هو قبل اللوضي نينكي مبارسة الله صار خالد بن وليد إنه بحه ونلا صاح عليه قوة يحوق يتعبر لغو soo xulay inta la diyaarinay waninka islaamay markuu mubaarasay u soo baxo Khalid soo istaagay biyo hal su'aal baan ku weydiinay Khalidow sayf baad wadataa qof alla qofkii mubaarasay u soo baxna waa dishaa waxaan maqalay biyo sayfta in Ilaahay samada uu ka soo dejiyay sayfta qof badhaafaynin Ilaahay baan kugu dhaashay sayf Ilaahay samada ka keenay baad wadataa markaasuu yiri maya وكسو شيكي دعودي كو سيداسان عن جرني واسدول من جرني اسنامتها عابدو جرني إلهي والنبي نغسو ساري وان لا عليتني وان لا دقالني ونغا عدكاذي وان إسلامني وان قرب استاقني سيفتا عن وتوحو يري نبي مع سلام عليه وسلم بايقوت السيف والله مسلول لكن سيفت إلهي قلق العيد بالله يقوت المامي لكن سيفتا سيف عركة كتمد معه markaasuu islaamay ninka yurun sheegay buu yiri sidoo ku islaamay ninkii mubaarasada loo soo diyaariyay islaamay halkaas jabku ka bilowday marka iyaga uu kaga bilowday maalintaas uu marka sheekeynaya lama kaana markay ahayd buu yiri yawm yarmouk kuna waxaan 24,000 boqol iyo 20 waxaan ahayn buu yiri 24,000 أو نحو من ذلك أما وحده دو فخرجت لنا وحن نصب حي الروم بنصب حي 20,100,000 بقول يلباتن كن بين رصب بحين دجالك ودجالك أكرمة ابن أبي جهل يأذركي ماركتي حارث بن هشام أذركنا أها صدقنا أها إن مارتي صدح ذي صحابية بيها سوري دي بيسي صدح ذي بمشي كل انتي دجالك سجع هوي دجالك سجع هوي مركب بقول يلباتن كن إيو أفراتن كن والفرق واضح يفير وأقبلوا علينا وإن سواء آدم بوجري من الروم بخضا
tallaabo thaqiilatin culus, tallaabo culus. tallaabada culus wuxuu ka wadaa waa niman isku xirxiran oo niman kala yaacaya ma ahane saf balaaran garabka isku hayaan, silsilada waa iskula wada taxan. marka waa niman un la gaardisiinahay ma arki jirtay sidoo kale camal saf balaaran saf bay u socdaan. bikhudan tallaabo thaqiilatin culus, kaanahum waxaad moodaa buu yidhi aljibaalu buuro oo tuxarikuha ay dhaqaajinayso riixayso aydin khafiyatun gacan qarsoon. buuro saas gadaal looga soo riixayo waxa riixayan aadan arkayn camal baad moodaa. ciidanku markuu carada ka bato oo uu socdo, inuu socdo xataa ma moodi mayso inuu siqayo. ilaahay subxana wa taala qur-aanka zaxfi buu ka cabiray, zaxfi siqid, wax siqaya camal. buur marka socoto oo cidda riixaysana aan la garanay, aan loo jeedin, bay u ekaadeen buu yidhi, bay u ekaadeen. waayahay kaanahum waxaad moodaa aljibaalu buuro oo tuxarikuha ay riixayso ay dhaqaajinayso aydin khafiyatun gacan qarsoon. wasaara waxaa socday amaamahum hortoodana waxaa socdo oo hor socdo al asaaqifatu wadaadadii iyo walbadaariqatu culumadii iyo walqisiisuuna maaragtay sheekhyaashii. marka asaariqada asaaqifada usqufka iyo bitriiqa iyo qisiiska waxaas oo dhan waa martabadooyin ayagu ay leeyihiin qolyaha kaniisada isticmaalaano meesha anagu aw iyo macalin iyo sheekh iyo mufti iyo caalim iyo waxaan ka dhahno saas oo kale wey, saas oo kale camal wey. ama waxaa la yidhi madaahib maadaama ay kala yihiin oo kala duwan yihiin, madhab walbo macnaha darajo isticmaalaa ayuu isticmaalaa. wasaara waxaa socday amaamahum hortooda al asaaqifatu baa socday wadaadadoodii iyo walbadaariqatu culamadoodii iyo walqisiisuuna sheekhyadoodii baa hor socda. yaxmiluuna ayagoo sido culamadu assulbaana saliibyadii bay sidaan, istilaabkii baa la wadaa. wahum ayagoo culamadu yajharuuna ku qaylinahayo bisalawaati ducooyin, waa ducaynayaan, duco bay ducaynayaan. fayuradiduhaa way u celinayaan aljeishu ciidankiina min waraa'ihim gadaashooday oga jiibinayaan. kuwaan markay dhahaan way ka daba qaadayaan, ayagana way ka daba qaadayaan. walahu waxay leeyihiin buu yidhi haziimun hugun commandoosta markay tiraahdo qaylinayso hal mara codka isla helaan sooma hugun ma bixiyaan. haziimun hugun bay leeyihiin oo ka haziimi racdi sida onkadka oo kale ah. onkadka ama gugaca waxaad u taqaanabo sidiisoo kale u dhawaaqayaan. wadaadadii baa qaylinaya, kuwana waa ka daba jiibinayaan. waxaad moodaabo onkad baad moodaa, onkad ayaad moodaa. yani codka guuxa noocaas oo kale ah macnaha baqdin buu keenaa, asaga laftisaa baqdin keenayo qofka inuu argagaxabo naxo. waaya falama ra'aahum markay arkeen almuslimiina muslimiintii calaa xaalihim haadihi xaalada nimankan romaaniyiinta ay ku socdaan, haaladhum waxaa cabsi gelisay kasratuhum cabsi badnaantoodii. nimanka intaasoo boqol iyo intaasoo kun ahoo saa safsafka ugu jira ee weliba dharka uniformka loo xiray ee guuxayo oo wadaadadii hor socdaan, waxay dhaha alla maanta waa idin dhamaatay. saasay jiraan muslimiintii. haaladhum waxaa cabsi gelisay kasratuhum badnaantoodii, wakhaarada waxaa galay quluubahum qulubtoodina shay-un shay oo min khawfihim cabsidooda ah gala. waa la baqay muslimiinta cabsi baa gashay. cinda dalika markaa kadib qaama waxaa istaagay nimankan marka tawxiid bay ku dagaalamayaan. tawxiid hadda hadday ahaan lahayd waaba la iskhilaafi lahaabo, war anaga hana haligine meesha hanagu laynina naga keena meesha, qaar baa iska bixla iska dareeri lahaa. nimankan waa niman tawxiid ku dagaalamayo, isma qalayo, lama dhaqaaqayo. in la baaba'o in la guulaysto waxba kama dhexeeyaan. qof joog dhahaya ma laha. maxaa yele qof walba waxaa aaminsan yahay hadduu dhintana janno inuu helayo. cinda dalika qaama waxaa istaagay abu cubaydata ibn ljaraax yaxudu asagoo ku boorinaya almuslimiina cala alqitaali dagaalka. faqaala wuxuu yihi abu cubayda, cibaadallah addoomadii ilaahayow, unsurullah ilaahay u gargaara, yansurukum wuu idin gargaari, wayuthabitu ilaahay wuu sugi aqdaamakum lugihiina iyo gomadihiinana wuu sugi oo carari maysaan. ilahay u heliya wuu idin helinayaa oo dagaalama jidkiisa ku dagaalama wey.
عباد الله الضمد إلهيو اصبروا أتكيستا فإن الصبر أتكيسك يصبركم منجات meel looga badbaado way min al-kufri gaalnimada meel looga badbaado way oo inta sabarto ilaahay darti u sabarto ilaahay darti lagu dilo waa meel gaalnimo looga badbaado manjaatun min al-kufri kufriga meel looga badbaado way wa mardaatun lirabbi rabbina yada raali garayso raali ahaanshaha rabbi way sabarku wa madhadatun waxa way midii waxa weeye ka fogeynaysa weeye waa madhadatun mid ka fogeynaysa lil caari caab weeye sabarku wuxuu ka fogeynaya caabtu ka fogeynaya oo haddaad carabto muslimiintu waa careen bal waliga lagu caaysan saddexda sifo waa leeyahay sabarku manjatun min al-kufri wa mardatun lirabbi wa madhadatun lil caari caabna waa ka fogeyn rabbina raali buu ku noqon haddaad sabarto adkaysato waxa weeye kufriga gaalnimana waad kaga badbaadi oo waad adkaysan waad guulaysan وعشرعوا وحجري وعشرعوا ديار سدا أرمها ورمها إشراع وحوي مركز حانيت ستو ورنك الله صباح أو معناها سود ديارية ديالتوي وعشرعوا هانيت سدا أرمها ورمه أو ديارية واستطيروا سكوك قبية بالتروس قاشان كان كوك بدا وفلارها يوحنا سوق من ورمها قاشان كان بدا والزموا لازمة الصمت عامسنا لازمة أو قيلة يسكدايها قيلنين سيء قيلنها وقيلنين إلا من ذكر الله إله الذكر يسموه عز وجل في أنفسكم نفتنا إله حسطان كاس كم بارم ميسان قفل بها عمسو عز دياريو إلهنا حسن سبحانه وتعالى حتى آمركم إلى أن أمر الإنسية إن شاء الله إلهي إذن كيس ساسو كل دارمي أبو عبيدة ابن الجراح إذن كيس قال سعيد وحجري سعيد بن زيد ويه عند ذلك مركا كدب خرج رجل نبا صوبحي من صفوف المسلمين تصفف كودو كصوبحي حالد مركي halka marayso oo nin walba soo naftii doonta ay marayso wala yaaban yahay oo nimankan tira badnaantooda guuxooda la yaaban yahay ayaa wuxuu yiri kharaja rajul nibaa soo baxay min صفوف المسلمين تصفكoodu ka soo baxay وقال wuxuu yiri li abi ubayda wuxuu ku yiri ninkii baa hadlay wuxuu ku yiri abu ubayda inni anigu azma'tu waxaan go'aansaday على أن أقضي إن ضميست أمركيجا الساعة تحضر ساعة عن لتشوفه باربعين شهادة قاتو ضياف الجرو وأنا شهيد إياه وأنا قوان صدي فهلا كمقوس وقنتهي وما هي ساعة من رسالة وحفرينه تبعث بها أدوسي ديبس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحفرينه إف رئيسه وأنت قال لما يا شهادة قادني إلهي الجنة سبحانه الصعداية وحفرين هذه فريس ومبالغة وية ماركتي يعني ويقين بوحيستاني كاسي قلبي سوء هاي هدي وماركتي سيدا كل انتو سيدا شهادة كوقاتين والجنة هي بلنقات كربه ليو مركا وقوبابين وي مركا قوبابين جنة نصعدا وي فهل لك مقوس كنت يا أبو عبيدة ومن رسالة فرين وتبعثت بها ضد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة وحير نعم تقرئه مني وذيك جارسين ومن المسلمين وذيك جارسين السلام وتقول له وتكده النبي يا رسول الله رسولك إلهي ويسوق أنت هدتك مسلمين ضدك أهل الجنة مركي الدنتان قافر يعني كل شيء كيستان ومثلا مركا حتى دمتو oo saaxiibadii aad taqaanay iyo qaraabadii ilaahay uu nimceeyay oo jannada daaqada looga furay baad u tagi way ku wareysan hebel ka waran hebel waa uu soo dhintay ma aragteen may alla ilaahay ka saawiyo jira doona noo imaan macnaha waxa weeye halkaasay ku kala warqaataan waayo nimcooyinka ilaahay uu galay hal qubuurka kuwa ilaahay raali uu ka noqday nimcooyinka ay ka mid tahay وحير النعم ها تقرئه مني وذيك جالسين لكن حديث كان هذا ما قرنا سنة كيس تقرئه مني وذيك جالسين ومن المسلمين يعني أثر كان ومن المسلمين تنك جالسين نبي السلام كجالسين وتقول له واحد كل هذا يا رسول الله رسولك إلهي
إنا وجدنا وأنا قوان هلي ما وعدنا ربنا ربنا وحو نوبلان قاضي حقا حالي حقهين وان هلي. قال سعيد ساس كله النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد وحو يري فما إن سمعت معنا مقل كلامه هذا الكيس نكاس ورأيته معنا أركن بيري يمتشق أسقو سيبتي حسامه سيفتيسي ويمضي دقاقي وآذي إلى لقاء أعداء الله عدو حقيسي حتى أنتي اقتحمت أن قرعي إلى الأرض أولكم قرعي بيري أسقونا واجد طوضي نينك هذا الكيس قيردي حتى أن بجنا أسعى النبي محمد بن أسعى صلى الله عليه وسلم بعدك قيرة جلسي حتى اقتحمت إلى أن قرعي بيري إلى الأرض أولكم أن قرعي وجسوت وان غرغرتي على ركبتي جلبهي كان غرغرتي واشرعت وحن لا سو بخي رمحي ورنكيغي وضعنت وان كمدي اول فارس نيكي ugu horeeyo aqbal علينا حقنا soo aaday waan ku bilaabay biyo warankii ثم وصبت وان بودي على العدو waan ku booday وقد انتزع الله اسوا الهي كسيبي كل ما في قلبي وح قلبي كجرا من الخوف عبسي إلهي بهالمر يقسي هذا الكنين بقى سبب النقطية هالمر سوني كانوا مدين شهادة قاعدنا يا ساعات أنا شهادة قاعدنا يا وأنا تكلم يا وهوي قف كيف واحد فرين يوفر يسان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو عبيدين سوى ما جوابين قف البحر الجنة على جوهر ما عبسي هالمر يبقى إلهي بقى هالمر قاضي أخذي ورب فصار الناس وذلك ويكوكعن في وجوه روم وجيدوا يكوكعن هل مربى لوياعي وما زالوا كما يزول يقاتلونهم إن يتقالميان حتى كتب الله إلهي وقرأ للمؤمنين المؤمنين النصر يقول وقرأ هل كاتب المؤمنين كوكوستين يرموك تقالك يرموك وايا تاس مركوا قصة دي وقيا قبل النيد سومرتي سعيد بن زيد وقصة دي ضياط هذا ماشي أنا وكذا قال يا امتحان كلا ولا امتحامي سعيد بن زيد يوحوا كلاكوا مركا وفي زمن بني أمية ما يوصل ما كبود جملة كبودي شهيد أبو حاضر سعيد بن زيد بعد ذلك مركا كذب فتح دمشق فرشاد ذي فلما قرتي دانا ذا يسدي بتي للمسلمين تمركا يسدي بتي بطاعته جانسن أو دمشق عن تلقوا لجي جعله كيالي أبو عبيدة بن الجراح أيا سعيد كيالي واليا مد مامرأة عليها دمشق مامرأة أما قدومية فكان وحى سعيد بن زيد أول من ولي قفك أجهري ومامولي امرة دمشق مامول كذا قفك أجهري قفتهم من المسلمين تكملها دمشق مركز ديبتي وننكي ماشي جوجي أو نصراني جاها أو حلكي ورجيي مركو مسلمين تقوضوا دار كل هريري ننكي وجوه الرئي ومعمولها قدوميها لوجر دمشق وحوها سعيد بن زيد بوها أيوها وفي زمن بني أمية راب بني أمية وقت قاضي راب بني أمية كسب بالله معاوية بن أبي سفيان إلى يويلكيس يزيد إلى ويلكيس كحد معاوية إلى ينكل يا مروان بن حكم إلا عبد الملك بن مروان سيدا صورن كصوت راب بني أمية قال هذا أما أمويين سأتقانبوا وحوين منك عباسيين تكهري ويو أسلام كسوما ملجري وفي زمن بني أمية وقعد واحد عضي سعيد بن زيد واحد قد عضي حادثة دعضو وظل هاتي أهل يثرب ريم مدينو يتحدثون بها إني كشاكيسان هيان زمنا طويلا وقت دير قصة لك شاكيستي أو ريم مدينة كشاكيستين فقد عضي سعيد بن زيد ذلك أرنك أوحى قصداسي أن أروى بنت أويس قبل ليها أروى بنت أويس زعمت وحي شاكتي أن سعيد بن زيد نكالي لهذا قد غصب إنو كبوبي أو كحوغي شيء ومن أرضها دولك هذه كمدة وضمها وقدر إلى أرضه دولكيس بيربي اسكول عينو سوهدين بيعاين مركا سوهدين بيعاينو biyo iska socda yimid oo aradii dhooba iyo ciid saartay
soodintii calaamadihii oo dhan baa doorsoomay isaguna dhulkiisa waa yaqaanay waxay tiri dhulkaygii ninkaana iga qaaday mana uusan ka qaadan Saciid ibn Zayd ninkaana iga qaaday dhul dhan baa iga maqan bay tiri ana Arwa bint Uways zacamad waxay sheegtay ana Saciid ibn Zayd qad qasaba inuu ka xoogay shay oo min ardiha dhulkeedii ah oo wadamaha ila ardihi dhulkiisa ku darsaday oo jacalad waxay guda gasho bilowday taluuku inay ku celcelinayso dalika arrinka bayna muslimiinta dhexdooda oo watatahaddathu bihi ay ka sheekaynayso qof walba aragto waxay leedahay Saciid ibn Zayd waa dhul iga dhacay Saciid ibn Zayd waa dhul iga xoogay Saciid ibn Zayd waa saa yeelay qofkay aragto saasay leedahay ninkaana waa nin saxaabi ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam saaxiibkiisa ah oo asagoo nool janno loogu bishaareeyay nin waxa laga filaba ma aha ayadana qofkay aragto ninkii la lahaa janna loogu bishaareeyay dhulkayga buu qaatay in bay leedahay waaya thumma rafa'at waxay u koriyay inta kuma joogin rafa'at waxay u gudbisay amraha arrinkeedii ila Marwan ibn al-Hakam ninka la yiraahdo oo wali madinati al-Munawwara magaalada Madiina wali buu ka ahaa intuusan amiirka noqon weeye marka Marwan bay u gudbisay taladeedii marka waxa laba xilliba uu ka ahaa Marwan ibn Hakam intuuna talada muslimiinta oo dhan qabanin Marwan ibn Hakam Abd Malik bin Marwan abihi weeye Marwan ibn Hakam ibn Abi al-Aas weeyo Uthman ibn Affan bil madariyin Hakam waa isma adeerka abihi la dhashay weeye marka laba sheer buu wali ka noqday Madiina xilligii Muawiya uu ka noqday xilligii Yazidna uu ka noqday marka labada xilli midkood weeye marka ayada qisadan u dhacayso xilligii Muawiya u badantay inay tahay waliba ثم رفعت waxay u gudbisay amraha amarkeedii ila Marwan ibn al-Hakam wa ila al-Madina Hakam ma garanaysan in badan baan ka soo sheekeynay Ismaan adeerkii abihi la dhashay weeyo aninkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tarxiilay oo yiri Taif ma soo dhaafi kartid magaalada Madiina iyo Makka midna ma soo gali kartid isagoo sidaa u tarxiilan waliba riwaayadka qaar waxay sheegeen inuu nacladay nabiga sallallahu alayhi wasallam naclad ku daray marka islaamnimo sheeganaya Hakam islaamnimo marka sheeganayay islaam ba maswa munaafiq waxaasay dadku isxmareen laakiin nabigu waxa la hubaa inuu inta saxiixa naclada xataa ma hubo laakiin waxa la hubaa inuu yiri ma soo gali kartid Makka iyo Madiina midna xilliga Abu Bakar wuxuu yiri xukunka nabigu gaaray wallaan ka dawrfuraynin halkaasaad ku oodnaanaysaa buu joog wakadalka xilliga Umar halkiisu ku oodnaa odaygi Uthman markuu talada qabsaday buu ka soo furay xariga waxay Uthman lagu eedeeyay kamid ahayd inuu macnaha ninkii nabigu tarxiilay uu soo daayay Uthmanna wuxuu ku andacooday inuu nabiga ka fasax qaato wuxuu yiri hadii talada gacantayda ay soo gasho adeerkii waa iska daynaya ogow nabiga ay fasaxay buu yiri sallallahu alayhi wasallam marka Hakam baa dhalay Marwan ibn al-Hakam ninkaasaa dhalay ninkaasaa dhalay Marwan ninka ila Abd Malik bin Marwan ibn al-Hakam iyo waxa isaf dhaafay maalmaha kamid ah qisada hadda ka hor adiga maqashay mahamaynayaay Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ayaa Marwan oo khudbaynayo oo ku hayo Muawiya haduu dhinto talada waxaan u dhiibanaynaa Yazid ibn Muawiya ninka mudanna ma jiro sida ogaada oo campaign u sameynaya Yazid ba Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq weeye baa hadlay oo wuxuu yiri niman badan oo madaxan soo maray islaamka soo maray Abu Bakr baa soo maray wiilal buu lahaa wiilashiisa tala looma dhiibin Umar baa soo maray wiilal buu lahaa tala looma dhiibin Uthman kadalika Ali ibn Abi Talib kadalika Muawiya muxuu wiilkiisa ugu dhiibaya Marwan baa wuxuu yiri ninka saa wax la waakay kaasale waa Abdurrahman ibn Abi Bakr Abdurrahman Abu Bakr soo kii ku yiri ma aha walladii qaala li walidayhi uffil lakuma oo suuradaas ku soo degtay soo ma aha Abdurrahman ibn Abi Bakr xilligii Badr iyo Uhud wuxuu la jiray mushrikiinta marka xan hoosaa suuqa ku jirto walladii qaala li walidayhi uffil lakuma waxay ku soo degtay Abdurrahman ibn Abi Bakr hadal noocaas ah oo saxiix ahayn baa suuqa ku jiray
markaasuu wuxuu yidhi soo matid kii waalidiintiisa uffi lakuma ku yidhi soo matid maxaad ka hadlaysaa iska aamus markaasuu yidhi adigu soo matid kii aabihii nebigu nacladay soo matid oo xakam kuma dhalin oo nebigu tarxiilay oo nacladay isu kuma dhalin qabtuu yidhi oo guriga caaishuu ku cararay oo guriga caaisha markuu galay baa faraha laga qaado laga hara marka labada nin baa xanta suuqa ugu jirtay xakam in nebigu nacladay ina suuqa ku jirtay laakiin qisada ahaa cabdiraxmaan ibn abubakar inuu hadalka ayadda kusoo degtay ma saxiix ma aha maxaa yeelay cabdiraxmaan ibn abubakar islaamnimadiisu aad bay u wanaagsanaatay maaragtay ilaahay subxaana wataala waa wanaajiyay saxaabi jaliil uu ahaa marka nin hadalkaa macnaha dhahay oo aayadda ay kusoo degtay ma ahayn macnaha qawlka saa dhahayana waa qawl aan jirin weye waa qawl aan jirin marka ninkaas baa dhalay xakam waa cismaan adeerkii abihi la dhashay wey marka cismaan bin cafan laakin waa nimanka dee nimankan umuwiinta la yidhaahdo meeshay ka farcameen ba weyabo nimankan madaxda ahaaye markii laga soo bilaabo mucaawiye wixii ka dambeeyey mucaawiye iyo yaziid talada marwan baa qabtay marwan waxaa ka dhaxay cabdimalik bin marwan halkaasay kusoo socotay marka silsilad dheer oo halkaas oo kale ah oo xakam ku wada abtirsato baa markaas kadib maaragtay taladii maaragtay muslimiinta sagada dambeeyey mid kasii dambeeyo waa yahay mawduuca waa dheer insha allah waxba ku taraarix mayno dalika ana arwa bint uways gabadha la yidhaha zacamad waxay sheegatay ana saciid ibnu zayd qad qasaba inuu ka boobay shay-an shay oo min ardiha dhulkeedii kamida oo wadamaha uu ku darsay ilaa ardihi dhulkiisa wajacalad waxay guda gashay taluuku inay ku celcelinayso dalika arrinkaas bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda watataxadasu inay ka sheekeynayso bihi arrinkaa isaga ahoo ay carradii ku faafinayso uma rafacad waxay u gudbisay amraha taladeedii ilaa marwan ibn lxakam bay u gudbisay wa ila almadinati almunawaray u gudbisay marka marwan waa ka xishooday inuu saciid ibnu zayd maxkamad soo saaro u yidhahda gabadhan ka garbax dad buu u diray marka fa arsala wuu diray ilayhi saciid buu u diray marwan unaasan dad buu u diray yukalimunahu la soo hadlo fi dalika arrinkaasi ururkaasi ay soo gaareen saciid ibnu zayd baa maxkamad looga yeedhayna waa ka xishoonayaaye bal arrintaa galoo ogaadu yidhi oo waraysta bal soo waraysta ninka la yaha saciid ibnu zayd fasacuba alamru amarkii waa la weynaaday calaa saaxibi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka saaxiibkiis arrintii baa la weynaatay oo waqaala wuxuu yidhi yarawnani ma waxay ii malaynayaan adlimuha inaan dulmahay oo gardaraysanayo xoogayo kayfa adlimuha see u dulmaa oo dhulkeeda uga xoogaa waqad samictu anoo maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah yaqulu leh man dalama qofkii dulmiya xoogo shibran taako oo min alardi dhulka kamida duwiqahu waa lagu qoor duubaa yawma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min 7 ardina 7 dhul baa qoorta loogu duubaa xadiiska laftiisa waxaa wariyay saciid ibnu zayd baa nebiga ka wariyey anigoo nebiga dhagahaya kaga maqlay ninkii hal taako oo dhul ah xoog ku qaata iyo dulmi ama boos isu keen degan oo dhul oo degaan ha noqdo ama beer ha noqdo ee hal taako qofkii xoog ku qaato ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamaha 7 dhul qur-aankaa sheegay waa qoorta loogu duubaa si ilahay ogyaha loogu duubaa qoorta say 7 dhul ugu duumi hadaad tiraahdo ilahay baa og awoodaa iskale subxaana watacaala marka anigoo xadiiskaas maqlay seen uga dulmiyaa dhulkeeda allahuma allahayow inahaa qad zacamad waxay sheegatay anii dalamtuha inaan dulmiyo xoogan dhulkeedii dhacay fa in kaanat kaadibatan hadday been sheegayso fa acmi basaraha ilaahu indhaheeda tir ilaahu indhalaan kuri oy indhabeesho saxaabigii jaliilka ahaa sumcad daraha suuqa u gasho waxaa la yidhi gabar buu dhulkeedii ka xoogay marka halkaasay marka saxaabiga ka maraysaa fa in kaanat kaadibatan hadday been sheegayso ilaahu fa acmi ilaahu tir basaraha araggeeda wa alqihaa ilaahu ku rid fi bi'rihaa ceelkeedii alladii tunaasicuni fiiha ay igula doodaysay ceelka ka dhex qodan beerteeda dhexdeeda ay maaragtay markay dhulka ku haysatay ay kor joogtay oy lahayd ceelkaygii ceel macnaha meeshay ka tilmaan qaadanaysay ahayd dhul baa iga maqan markay lahayd ilaahu ceelka laftiisaba ku rid intay indhaha tirtay hadday been sheegayso
oo waadir ilaahu muuji fi xaqaygana nuuran asagoo iftiina oo yubayinu u cadaynahay lilmuslimiina muslimiinta annii lam adlimhu inaan dulmin ilaahu soo dedeji oo ummadana u cadday inaanan dulmin oon maagin aanan maagin waa yahay saasuu ku ducaysta markaa ilaahu indhaha tir ceelkana ku rid oy halkaa ku dhimato muslimiintana u caddee inaanan gardaraysanoo dadku ha ogaadeen lam yamdi kama soo wareegin calaa dalika arrinkaasoo kayru qaliilin wax badan xataa saala ilaa uu soo rogmaday alcaqiiqu waadiga caqiiq baa soo rogmadoo daad soo rogay bisaylin daad buu soo rogayoo lam yasil uusan soo rogin mithluhu qad weligii daad aan la arag baa yimid biyo guur ah baa yimid fakashafa wuxuu xaaqay oo fayday can ilxaddi sohodintii alladii xadkaasoo kaana ahaa kaana ay ahaayeen yakhtalifaani fiihi kuwa isku khilaafa meesha la isku haystay dhulkii oo dhan buu sifeeyeyba dhoobadii wixii dhulka fuul oo dhan oo wax qarinhayay buu ka qaaday wa dahara lilmuslimiina muslimiinta waxaa u muuqday ana saciidan qad kaana saadiqan inuu ahaa inuu run sheegahayay waagaa baryey dhulkii baa xaaqmay waa la arkay inay ka gardaran tahay saan ma moodeyn bay ku waalatay saan ma moodeyn saa ilama ahayne waxbaa iga iska dhaadhiciyey waxaasay isku waalatay waa too late qofka sumcaddiisa already waabo suuqa warkii waa galay markuu ilaahay daahiriyey oo la ogaaday inuu jid leeyahay walam talbas maysan nagaan almar'atu haweenaydii bacda dalika intaa kadib ilaa shahran bil kama soo wareegin xataa camiyad ilaa ayan dhabeeshay ay indhihii baa dam yidhaahdeen habaarkii saciid ibnu zayd baa ku dhacay wa bayna waqti hiya iyadu taduufa ay wareegayso fii ardihaa dhulkeedii beertiisa dhexdiisa tilka taa ahayd saqadad waxay ku dhacday fii bi'rihaa ceelkeeday ku dhacday waa naag indhala ilaahay fa qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu cumar fa kunnaa waxaan ahayn buu yihi naxnu anagu khilmaanun kurayo bayn ahayn wiilal kurayo ah nasmacu waan maqli jirnay buu yihi al insaana dadkiio yaqulu kula lilinsaani dadka kale dadkii oo ku sheekaysanayo oo isku dhahayo markay laba qof ishabaarayaan acmaaka allahu kama acmal arwa acmaaka allahu ilahay ku indhatir kama acmaa suu u indhatiray al arwa gabadhii arwa ahaydee saciid dhulka ku qabsatay ee beenta ka sheegtay suu u indhatiray ilahay ku indhatir dadku saa isku habaarhayaan maqalay xadiiskan waa daciif weye asarkan inuu daciif yahayna waxaad bay ka fahmaysaa qofkii siirada yaqaano si fiican buu markiiba u fahmaya xilligan ayadaa waa xilligii mucaawiyena talada wuxuu qabtay sanadkii afartanaad ee hijriga kaba soo qaad inuu xilligii mucaawiye yahay hadduu xilligii yaziid yahay yaziid wuxuu qabtay sanadkii 60aad ee hijriga 20 sano mucaawiye hayay hadduu yahay xilligii mucaawiyena mucaawiye talada wuxuu qabtay sanadkii 4tanaad ee hijriga cabdullahi ibnu cumarna markii lasoo qaxayay 10 iyo wax la jiru jiray 10 iyo waxaad ku dartaa 40 konton ba kama yidhi cabdullahi ibnu cumar markaa xilliga qasidaan u dhacayso marka seebuu ku dhihi karaa marka fa kunnaa naxnu qilmaanun wiilal baan ahayn qurayo ah marka halkaasaaba laga fahmaya dacfiga asarka inuu daciif yahay waxaa laga yaaba marka qof kale inuu yahay oo cabdullahi ibnu cumar uusan ahayn ayaa laga yaaba qofka hadalkaa yidhi oo markaa dhalinyarada ahaa qof kale inuu yahaa laga yaaba waa yahay acmaaka allahu dadkii waxaan noqonay fakunaa waxaan baynu naxnu anagu fakunaa waxaan wa naxnu qilmaanun anagoo dhalinyaro ah nasmacu kuwa maqlaan ahayn al insaana qofkii yaqulu lil insaani qof kale kule markii la ishabaari acmaaka allahu kama acmal arwa ayadii baa halqabsi noqday sida arwa ilahay u indhatiray ilahay ku indhatir walaa cajaba layaamale fi dalika arrinkaas inay habaarku ku dhacay islaanta maxaa yeelay fa rasuulu calayhi salaatu wasalaam yaqulu wuxuu yihi ittaquu iska ilaaliya dacwata almadluumi qofka la dulmay habaarkiisa iska ilaaliya fa inahu habaarkaasu laysa ma ahaan ama fa inahu amar ishaniya laysa ma ahan baynahaa habaarkaas iyo dacwadaas allabarigaas iyo wa bayna allahi ilaahay xijaabun xijaab uma dhexeeyo horaa laga aqbalayaa
horaa laga aqbal xataa qofka gaalka ah dadka ka darsato isku habaaro ugu dhacaya habaarku marka keliya qofka aan muslimka ahayn gaalka baryadiisa la aqbalo waa goorma hadii lagu yiraahdo waa marka laga gardaran yahay marka laga gardaran yahay diinteena dulmi ma ogola inni xaramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu samaha ya ibadi fala tadalamu waxdis lqudsi marka dulmi lama ogolo gaal iyo islaam qof inaad dulmido laguma ogolo qofna inaad gardarayso laguma ogolo ittaqu ka dhowrsado iska ilaaliya oo ka gaashaanta dacwata almadluumi qofka la dulmiyay habaarkiisa ama baryadiisa fa innahu laysa maaha baynaha iyo bayna allahi ilaahi ayadu xijaab uma dhaxeeyo baryada ayada ah ya rabbi wax xijaab oo kala celinaya malaha rabbi uu aqbalaya markiiba فكيف كورن هديب الدعوية ودنا أساس حتى قال كتيس الأقبليو فكيف بالكورن إذا كان المظلوم قفك الظلمي هدوية هي سعيد بن زيد وأها أحد العشرة المبشرين لهم بالجنة أحد العشرة متكملة طبنك المبشرين لو بشاري بالجنة الجنة كل لو بشاري متكملة هدوية هي بالكورن والله أقبل ياوي مركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعيد بن زيد انت سيكون تأثير ديسي وحي عن قفني إلهي سبحانه وتعالى أنا قاعد فيه وحي عن سحنين إلهي سبحانه وتعالى وما حسن كم حسن نوافتشي جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.